maalmahan bulshada dhowr arrimood ayay aad iyo aad uga sheekaysataa oo aad iyo aad loo hadalhaya mid waa furista axsaabta midna waa khilaafka golaha ta axsaabta furdeeda haddaan ku horeeyo dalkeennan sharciga ku dhaqma dastuurka iyo xeerarkii ay golaashu baaskareeyeen bayna hogaamiyeen furidda axsaabta qofna kama goyn karo qofna kama hadli karo waxaynu raacaynaa oo guddoona xeerka fooliin oo sharci ah labada golood ay baaskareeyeen madaxweynena saxeexay ayaa dhaqangala xeerkaasi tallaabooyin buu ina farayaa wuxuu ina farayaa doorasho walba wakhtigeeda in loo diyaar garoobo siday u qabsoomi lahayd sanadka dambe waxay nagu soo beegan laba doorasho inta disembar ka horeysa oo kala ah madaxtooyada iyo furinta axsaabta waxaa iyadana sugaysa oo sharcigeedanu dhammayno ay tahay golaha guurtida oo in badanna joogay ayaa isna u baahan in hawshiisi galo waa muddo gaaban oo doorashooyin bay nagu soo beegmeen xeerku wuxuuna farayaa xisbiyada qaranku ee saddexdaa in 10kii sanaba mara doorto oo uu ka dhacayo ruqsadda ay ku galaan shaqada siyaasadda 10kii sanaba mar maanta saddexda xisbiya jooga waxay kaga dhammaanaysaa laysanka ay ku haystaan siyaasadda dadka dheer yihiin wuxuu kaga dhammaanayaa 26 Disembar 2022 sida uu qeexayo xeerka 14 wuxuuna farayaa isla xeerkaasi marka ay ka hadha 6 bilood dhammaadka laysanka xisbiyada oo iminka ku beegan 26 Disembar 2022 in 6 bilood ka hor la furo ururada in la ogolaado in la furo 6 bilood haddii 26 Disembar 2022 laga soo bilaabo waxay ku soo beegmaysaa May 2022 sidaa darteed xukuumad ahaan annagoo fulayna oo raacayna jidka xeerku sheegay bisha May 13 haddii ilaahay yiraahdo xisbiyadii waa la furayaa nin walba ku biicab xeer baa furaya qofna ma horjoogsan karo laba xisbiyada qaranka waxaa ku waajiba in aanay ka doodin furidda axsaabta waayo waa sharci maanta guddoomiyaha xisbiga wadani wuxuu yidhi xisbiyada in furo waana ogolla haddaa maxaa lagu murmayaa dadku wareegaya sidaa sharcigu habeen gelayna waxaa kaloo iyana sharcigeenu ogol lahay waktigii loogu talagalay doorashada madaxweynaha iyo u diyaargaroobeedii iyaduna waa waajiba waktigeedaynu maraynaa oonu u diyaargaroobayna haddii ilaha yidhaahdo waxaa iyana loo diyaargaroobaya waktigeeda golaha guurtida oo bisha January 2023 ku beegan mar haddaynu sharcigaaya waddada hayno garan maayo waxa buuqa iyo muranka dhaliya gaar ahaan labada xisbiya mucaaradka waxay ka boodsan yihiin garan maayo saddexdii doorasho mid walba waktigeedii soo sharcigu jideeyay aynu u marro inuu diyaar garowno anigu waxa ku jira garan maayo waxa looga diday laba haddii sida ay sheegeen maanta labada xisbi ee mucaaradka guddoomiyaashoodu murashaxa cabdiraxmaan iyo guddoomiyaha inay u diyaar yihiin doorashooyinkii waxaan leeyahay hadalkiinaasi ha ka muuqdo xubnaha golayaasha idinkaga jira ee idinku ka reebteen xisbiga golaha wakiilada dad ka harsan ee guddoomiyuhu ka yahay hadalka aad tidhaahdeen ha ku dhaqmo oo ha u diyaar garoobeen furistii golayaasha qof walba waxaa ku waajiba inuu ixtiraamo sharciga u hoggaansamo khilaafka ka dhaxeeya golaha wakiilada ka hadli maayo waayo arrintiisa maxkamad bay u gudbiyeen arrin maxkamadu taalana ka hadli maayo waxaan se leeyahay murashax cabdiraxmaan ciro oo in badanna xisbiga ka tirsanaa maanta wuxuu yidhi golihii waa la faragelinayaa oo cid baa ku shaqaysanaysa oo golihii iyagii ma shaqaynayana waa loo talinaya xaashaakada waa meelka dhac xildhibaanada cusub ee xisbigaaga u badan ee arrintan yidhi waa sharciga hala maro anigu waxaan qabaa inay golaha meelka dhac ku tahay cidda aad ku eedeynaysana waxay la tahay iyana waa ku gef adigana waxay Soomaalidu tiraahdaa cabdiraxmaanow beenaale iyo muhubsada waa walaale malaha beenaale ma tido odaybaa tahay malaha waan hubsan warkaas markaa soo baxay cabdiraxmaan wuxuu ka xumaaday golihii waxa ka dhacay muddadii uu joogay isagoo cid aan golaha ahayn ku eedeynaya waxaan ku leeyahay
golaha wixii ka dhacay ninkii gabiye wuxuu yidhi tacabkii suldaan diiriyey iyo taladii migaagdhi adeer waa tacabkaagii iyo tuhunkaagii iyo taladii guddoomiyaha ku maqlay ayaa xumaantaa ka keenay golaha iyo waxaa ka dhacay ee meel kale loo eersan maayo waxaan ku soo gebagabaynayaa qof walba waxaa ku waajiba inuu raaco sharciga oo aynaan sharciga baal marin arrintaa laga doodina intaasaan kaga harayaa guud ahaan dadka somalilan waxaan ku dhiirinayaa inay u tashadaan qarannimadooda horumarka bahda ciyaaraha aad iyo aad baan u garab taaganaha dhalinyarada distoorkaana faraya dadnimadaana faraysa waa danteennii waxba ka akhrimayno sanadka maanta waxaa la ciyaaray 18 ciyaarada kubadda ah waxaa ka qayb galay 4,543 qof waxaa ku baxday lacag ku dhow $5 milyan saddexdii sano u dambeeyey wasaaradda ciyaaraha bajetkeeda marka lagu daro laga saaro badankeeda waxaa ku baxay lacag ah 3 milyan iyo dheeraad oo ku kala baxay garoonnada ku yaala Ceergaabo Laascaanood Caynaba Buuhoodle Burco Berbera Maroodi Jeex oo dhammaantood mid la dayactiray mid la dhisay iyo mid qalab loo sameeyey dhallinyaradaba waxaasi waxaynu ugu ogeysan dhallinyarada waxba idinka maanaha akhrin waxba la akhrin maayo danteennu intay gaadho kolka laga reebay nabadgelyada marka laga reebayo caafimaadka iyo waxbarashada oo idinku waxbarashada raacsantiin xagga hore ayaa kaga jirtaan mudnaanta dadka loogu dadaalka badan inay hirgalaan wasaaradda ciyaaruhu laakiin baahideeda iyo dadka ka qayb gala ciyaaraha iyo dhalinyarada ayaa ka tiro badan miisaaniyadda taasina waa iga intaa waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa wafdiga ka yimid Ethiopia ee nagala soo qayb gala ciyaartan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waadaan darisnahay ay wax badan naga dhaxayaan deegaanka Soomaalidana waxaan leeyahay aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa insha Allah in ciyaarayo dhaqamo is wadaarsan doonaa aad baan soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh